maanta waxaan ka hadlaynaa sida loo activate gareeyo Windows 10 si bilaash ah ama si free ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad ku soo dhawaataan channelka Som Skills. Maanta waxaan ka hadlaynaa sida loo activate gareeyo Windows 10 si bilaash ah ama si free ah. Operating systemka Windows-ga ah ma ahan mid gebi ahaan wada free ah. Taasi oo ka dhigan haddii aad rabto in aad activate garaysato waxaad u baahanaysaa inaad iibsato license oo aad ku activate garaysato Windows-ga. Sidaasi ayaana wanaagsan inaad samayso haddaad awoodo inaad license iibsato. License-ga inaad iibsato kadibna aad ku activate garaysato ayaa wanaagsan oona sharci ah. Hase yeeshee haddii aad tahay arday ama qof aan awoodin inuu license iibsado, waxaa jira nidaam aad si free ah ku activate garaysan karto Windows-gaaga oo laakiin aan sharci ahayn. Sharci aan ahayn markaan ku leeyahay waa nidaam aysan shirkadda Windows-ga iska leh ee Microsoft aysan ogolayn, waana nidaamka aan muuqaalkani ku sharxi doono. Marka si aad u activate garaysato Windows-ga si free ah, marka hore waxaad u baahanaysaa wax la yiraahdo crack. Crack waxa la yiraahdo haddii aydan garanaynin ama aadan hore u maqlin, haddii aan si kooban u sheego waa software lagu jabiyo software kale. Sidaa darteeda crackyo dhowr ah ayaa jira oo Windows-ga lagu activate garayn karo. Hase yeeshee muuqaalkani waxaan kaliya uga hadlaynaa midka ugu sahlan aan isleeyahay oo magaciisa la yiraahdo KMS AutoNet. Marka si aad u isticmaasho barnaamijkani, marka hore waxaa muhiim ah inaad internetka ka soo degsato, laakiin inta aadan ka soo degsan ka hor waxaa wanaagsan inaad iska xirto haddii antivirus hadduu kugu jiro. Haddii uusan antivirus kugu jirin, sidoo kale waxaa muhiim ah inaad iska xirto qaybta virus protectionka ee uu Windows-ga leeyahay. Si aad isaga xirto qaybta virus protectionka ee uu Windows-ga leeyahay, marka hore waxaad tagaysaa ama aad soo furanaysaa qaybta settingska. Settings markaad tagto kadib waxaad kasii tagaysaa qaybta ay ku qoran tahay update and security. Kadibna waxaad kasii tagaysaa qaybta Windows security. Kadib waxaad dooranaysaa qaybta virus and threat protection ay ku qoran tahay. Kadibna waxaa kuu soo kacaya qayb cusub, waxaadna ka dooranaysaa oo aad kali ku siinaysaa halka ay ku qoran tahay manage settings. Kadib markaad manage settings aad kali ku siiso, waxaa kuu soo baxaya optionada protectionka ee uu Windows-ga leeyahay. Dhammaan inta on saaran off ayaad ka dhigaysaa. Markaad intaas samayso, settingska hoos iska dhigo si aan hadhow markaan Windows-ga activate garayno dib on uga dhigno dhammaan optionada aan off ka dhignay. Kadib waxaan soo furanaynaa browser si aan ula soo degno crack-ga aan Windows-ga ku activate garayn lahayn. Browserka aniga aan adeegsanayo waa Brave. Kadib waxaad tagaysaa qaybta kore ee URL-ka lagu qoro, waxaadna ku qoraysaa kmsauto.info. kadibna enter ayaad leedahay. Haddii qoraalka URL-ka inaad ku qorto dhib uu kugu yahay, qaybta description-ka ayaan kuu dhigayaa linkiga, halkaas ayaad si toos uga gali kartaa ama uga koobiyeysan kartaa. Kadib website-ka markuu kuu soo furmo, hoos ayaad u soconaysaa ilaa qaybtani aad ka soo gaarto. Batoonka ay ku hor qoran tahay latest version ayaad download leedahay. Kadibna wuxuu kuu soo dejinayaa crack-ga asigoo zip ku dhex jira. Markuu kuu soo dejiyo, zipka ayaad ka saaraysaa. Kadib markaad zipka ka saarto, waxaad soo kacsanaysaa faylka ay ku qoran tahay KMS AutoNet ayaad soo kacsanaysaa. Kadib waxaa laga yaabaa in uu user account control kuu soo kaco. Marka yes ayaad leedahay haddii uu kuu soo kaco, lianna screen recorder-ka aan adeegsanayo user account control-ka ma duubayo. Barnaamijka markuu kuu soo kaco, saad u jeedo wuxuu leeyahay laba batoon oo qaybta taabka mine aad ka heli karto hadduusan kuu muuqanin. Batoonka aan u baahannahay waa midka ay ku qoran tahay activation. Marka click ayaan ku siinaynaa. Click markaad ku siiso waxaa kuu soo baxaya laba batoon kale, mid Windows-ga lagu activate gareeyo iyo mid Office-ka lagu activate gareeyo.
anagu waxa aan rabno inaan activate gareyno waa windowga sidaa darteeda waxaan dooranaynaa oo aan click ku siinaynaa batoonka ay ku qoran tahay activate windows click markaad ku siiso waxaad arkaysaa in batoonka ay running kusoo qorantay qaybta buluuga hoosena waxaad ka arkaysaa progresska ama howsha uu barnaamijka wado sakano dhowr ayaad u kaadinaysaa kadib waxaad arkaysaa inuu hoos kugu soo qoraayo product successfully activated kadib markaad intaas samayso barnaamijka waad iska xiri kartaa sidoo kale waxaa muhiim ah inaad dib on uga dhigto optionada qaybta virus and threat protection oo aan hore off uga soo dhignay marka si aad u xaqiijiso windowgaaga inuu activate garaysan yahay iyo in kale waxaad tagaysaa qaybta settingska kadibna waxaad ka tagaysaa qaybta update and security waxaadna kasii dooranaysaa qaybta activation kadibna waxaad fiirinaysaa qaybtan activation ay ku qoran tahay haddii waxa ku qoran uu yahay windows is activated waxay ka dhigan tahay in uu windowgaaga activate garaysan yahay waxaan rajaynayaa inaad fahanteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu